Salaamu calaykum. Maanta waxaan sharxi doonaa filim Maraykan ah. Wuxuuna soo baxay 2016 waxaana la yiraahdaa 13 Hours. Horey u fiirso qaswadayaasha daawo oo taxadar. Waxaa soo degay askari lagu magacaabo Jack Silva. Wuxuuna yimid meel la yiraahdo Benghazi, Libya. Waxaa soo qaaday saaxiibkiisa ugu dhow iyo nin kale oo qandaraas leh oo ka tirsan CIA-da. Tyrone Woods labadan ayaa waxa wadada ku joojiyay koox dable ah. Waxa uu waa idaacadda madaxdooda si ay ugu soo diraan koox, balse ugaasku uu ka diiday inuu caawiyo ayaga. Hogaamiyihii xag jirka ahaa ayaa ku amray inay ka baxaan baabuurka si loo baaro. Wuxuu la soo baxay qoriga. Tyrone ayaa uga digay. Hogaamiyaha ayaa u sheegay inay jirto diyaarad aan duuliye lahayn, yacni kaamira diyaarada. Maleeshiyada ayaa ka labalabeeyay laakiin waxay ogolaatay in labada nin ay baxaan. Iyagoo yimid guri CIA nabadoon lagu naaneyso. Tyrone ayaa ka hor yimid madaxa in aan loo ogolaan kooxda in ay dhex gasho madaxda, isagoo xasuusanaya xaaladooda diblomaasiyadeed. Liibiya ayaa ah mid aan xasiloonayn, waxayna amaro adag ku bixiyeen in aan la dhexgelin dadka rayidka ah iyo dagaalyahanada ka hor inta uusan imaan safiirka Maraykanka. Dhanka kale, Jack ayaa la kulmay kooxda inteeda kale, koox qandaraaslayaal ciidan oo gaar loo leeyahay, qandaraaslayaal ka socda Gaariis oo loo keenay inay ilaaliyaan xarunta. Jack ayaa gudagalay hawl kooban oo ay watay laba sarkaal oo sir ah oo kala ah Sona iyo Jilani iyo Brit Feiner, halka kooxda inteeda kale ay u dhowday si ay u ilaaliyaan. Tyrone wuxuu arkay laba nin uuna ka shakiyay. Wuxuu dareemay in isla markiiba meesha khalkhal gashay. Isla markiiba gaadhiga ayuu ka soo degay wuxuuna soo saaray Jilani iyo Feiner ka hor inta aanu iman danjiraha Maraykanka. Xubnaha kooxda waxay booqdeen ergada gaarka ah oo ay ku sugnaan doonaan. Waxay dib u eegis ku sameeyeen halka uu ku sugan yahay, waxayna digniin u direen wakiiladeeda ammaanka diblomaasiyadeed Dave Abben iyo Scott Wickland oo ku saabsan khatarta ugu yar ee habeynta amniga iyo suurtagalnimada sare ee weerarka lama filaanka oo ku wajahan duruufaha qallafsan ee dalka. Imaanshaha safiirka ama danjiraha Benghazi oo ku magac dheer Stephen ayaa degaya dhismaha, waxaana ilaalinaya wakiilo diblomaasiyadeed oo weheliyaan ilaa laga soo kiraystay shuhaadada maxalliga ah. Oo 17 Febraayo maleeshiyo guuto ah aroortii sanad guuradii 11aad ee Sebtembar 11keedii, Stephen ayaa arkay nin uuna ka shakiyay, wuxuuna ku sugnaa agagaarka xarunta oo sawirro qaadaya, taasoo ku kaliftay inuu u waco ilaaliyaha. Dhanka kale, waxaa dib u soo laabtay lifaaqa kooxda, wuxuuna fursad u helay inuu la xidhiidho qoyskiisa iyo ciyaalkiisa, Becky iyo gabdhaheedaba. Becky ayaa uur leh ilmaheedii saddexaad. Haddii aad ka hesho muuqaalo noocan oo kale, like-taan ka arko, subscribe-na noo saar, mahadsanid. Habeenkaas koox dable ah oo ka tirsan Al-Shabaabta ayaa waxay weerar ku qaadeen xarunta dowladda federaalka. Si degdeg ayay u dhaafeen, taasoo u sahlaysa in kooxii weerarka soo qaaday ay si fudud gudaha ugu galaan. Maleeshiyadii rasaasta wadatay xarunta ayay galeen. Wicklandna wuxuu la cararay Stephen. Sean Smith oo ah khabiir ayaa galay qolka iskuna xidhay isagoo argagaxsan. Waxay awood u waayeen in albaabka jebiyaan, waxayna bilaabeen inay ku shubaan shidaalka dhulka si ay u gubaan oo shiday. Qiiqa ayaa bilaabay inuu gudaha u galo, iyagoo argagaxsan. Wickham ayaa isku dayay inuu bannaanka u soo baxo, laakiin waxa uu ku dhammaaday guuldarro. Dhanka kale, nimankii ku sugnaa lifaaqa ayaa lagu wargeliyay weerarka dhacay, waxayna rabaan inay baxaan si ay u caawiyaan, laakiin madaxdooda ayaa diiday in loo diro caawimo, iyagoo ka baqaya in ciidanku ay noqdaan difaac la'aan. Kooxda ayaa diiday amarkooda, waxayna u socdeen hawl gaar. Waxayna yimaadeen xarunta, waxayna la kulmeen ilaaladii ku jirtay meesha, DS iyo Jack iyo Tyrone oo ku hoos jira dhismaha hoostiisa, iyagoo raadinaya Stephen iyo Smith. Laakiin waxa uu helay meydka Smith kadib markuu dab xoogan ka kacay gudaha, wayna la dagaalameen maleeshiyada. Ilaalada DS ayaa dib u gurtay. Wickland ayaa u socda dariiq khaldan. Waxaa soo raacay dableyda oo ku soo laabanaya lifaaqa. Waxay arkeen dib markii kooxda Gaariis ay sidoo kale dib u gurteen oo ay dib u soo baxeen si ay ugu soo laabtaan xarunta, iyagoo ka baqaya argoosiga saraakiisha CIA-da. Waxay isku dayeen inay la xidhiidhaan saldhigyada hawada ee ugu dhow si ay uga caawiyaan weerarka dhanka ah. Mintidiintu waxay awoodaan inay la xidhiidhaan Glenn Bob Dafteri, sarkaal Gaariis ah oo ku sugan Tripoli, kaasoo isku soo ururiyay kooxdiisii oo ay ku jiraan laba ka mid ah shaqaalaha Delta oo hoos u dhaca Benghazi si ay u caawiyaan dagaalyahano badan oo u jihaysan lifaaqa oo ay sii wadaan weerarkooda ka dhanka ah Maraykanka. Kooxda ayaa dib u riday oo sii waday si uu u difaaca xarunta, inkastoo rasaas culus ay ku dhacday dableyda. Dableyda ayaa dib u soo laabatay oo isku dayday inay dib isku soo abaabulaan. Kooxda Gaariisna sidoo kale ayay sameeyeen. Markay yimaadeen Glenn iyo raggiisa, markay ogaadeen in caawinaad dheeri ay ku socoto habka xoojinta Tripoli, Gaariis ayna bilaabaan diyaarinta CIA-da iyo DS shaqaalahooda ka dhoofay garoonka diyaaradaha dibadda ka baxsan. Xaqjiriinta ayaa weerar hoobiye ku qaaday foornada. Xubin ka tirsan kooxda OC ay ku dhaawacmeen. Tyrone wuxuu u orday dhalinyaro, waxaana ku dhintay hoobiye kale. Doherty ayaa sidoo kale la dilay markuu hoobiye saddexaad si toos ah ugu qarxay. Jack ayaa helay meydka Taroniga. Wuu ooyay maadaama uu ahaa saaxiibkiisa ugu wanaagsanaa. Waagu wuu baryay. Kooxdii Gaariis ee harayna waxay ku dhowaanayeen kolonyo baabuur ah oo ku sii qulqulaya lifaaqa Tonto. Qorigiisina wuxuu la beegsaday laba nin oo baabuurka la socday, balse wuxuu helay fariin ah inay joogaan dad caawiya. Tiirarka argaha oo ooyay. Kooxda ayaa lagu wargeliyay in meydka Stephen laga helay xarunta gadaasheeda, balse waxaa la sheegay inuu ku dhintay isbitaalka. Ciidanka Liibiya ayaa soo ururiyay kuwa Maraykanka ah, waxayna geeyeen garoon diyaaradeed u dhowaa.
meydadka Smith iyo Tyrone iyo Glenn waa la soo saaray oo la qaaday. Sidoo kale madaxdoodii ayaa dooratay in aanu diyaaradda dib ugu laabanayn ilaa uu Jack ka hor yimaado oo uu ku amro inuu fuulo, isagoo xasuusinaya inuu qayb ahaan mas'uul ka yahay qaar ka mid ah nafaha ku dhintay weerarka. Ka hor intuusan dhoofin, Jack wuxuu ka baqayaa Becky. Wuu wacaa si uu u ogeysiiyo oo ah xaaskiisa, wuu niyad jabay oo ooyin afka qabsaday markuu u sheegay in Tyrone uusan samaynin. Markay diyaaraddu timid, Jack wuxuu codsaday inuu arko meydka Tyrone markii ugu dambeysay. Gabagabada qoraalka wuxuu sheegayaa in 28 Mareykanka laga soo badbaadiyay maalintaas. Waxaa lagu dhawaaqay in Liibiya ay tahay dowlad fashilan oo hadda xarun u ah 10 maalmood kadib markuu dhacay weerarkii kumanaanka rayid ee Liibiyaanka ah ayaa iskugu soo baxay oo u sameynaya baroordiiq ay u sameynayaan Ambassador Stephen. Xubnaha madaxda ayaa bilado ku helay, waxayna raggan ka fadhiisteen in ay qoysaskooda la joogaan. Filimku wuxuu ku dhammaanayaa sawirka 2 xiddigood CIA Center oo sharfaysa Tyrone iyo Glenn. Waad ku mahadsantahay daawashada. Like iyo subscribe-tana iska saar. Mahadsanid.